asalaamu calaykum kusoo dhowow maanta iyo muuqaal cusub intaynaan muuqaal ka bilaabin yar ayaan kaa codsanayaa oo waqtigaaga ka mid ah fadlan waad ku mahadsan tahay marka hore daawashada muuqaalada like commentiyada aad kasoo bixisaan aad ugu mahadsantihiin subscribe-na channelka saara inta aynan u gudagelin muuqaalada maanta kusoo dhowaada. ilmahan yar keligii ayaa guriga joogay waxa uu ku baraarugay in guriga uu kusoo weerarayo shakhsi kaas oo taagnaa in badan albaabka hortiisa marar badanna isku dayay inuu guriga soo galo qaraacana albaabka marar badan. ilmahan yari kadib markii uu duubay muuqaalkan arrintan waxay gaadhay ilaa iyo askarta laakiin qofkan shakhsiyadiisa weli lama garan. qofkan aan la garanayn shakhsiyadiisa waxa uu soo hor istaagay gurigan isaga oo soo hordhigay waxan aad arkaysaan. waxa uu muujinayaa in uu handadayo una hanjabayo qofka gurigan degan ama iska leh. gurigan deganaad buu la yaabay ugana naxay qofkan aan shakhsiyadiisa la garanin soona weeraray waxaana lagu faafiyey bulshada ama social mediaha lagu wada xidhiidho. xataa ciyaalka yaryar inay soo weeraraan waxyaabo la arkayo ama bini aadam keliyata ma ahan. inantan yar waxaa soo weeraray waxyaabo aan la arkayn aad iyo aadna ula yaab badan. inantii yarayd markii ay arrintan aragtay way naxday aad iyo aad ayayna ula yaabtay. bal ka waran fikirkaaga commentiga kasoo dhiibo sidee ayay suurtagal ku noqon kartaa arrintan oo kale inay dhacdo oo xuruuftani ay inanta yar dib ugu soo laabtaan ama dhaqaaqaan. dhacdadeenan afraad waxay ku dhacday Michael Smith gurigiisani waxa uu isku bedelay mid ay ku nool yihiin waxyaabo aan la arkayn dhaqaaqiyo iyo waxyaabo badan laga sameeyo oo aad kaga bogan kartaan muuqaalkan. kadib Michael waxa uu ku soo sheergareeyay muuqaalkii social mediaha. kadib arrintii aad iyo aad ayay uga sii dartay waxaad moodaa in uu uga sii darayba gurigiisa. TV-gu waa uu iska shidmayaa albaabadu keligood ayaa ay iskaraacayaan oo isfurayaan.
maalmo badan ayaa ay arrintani kusoo laalaabatay, arrintanna ma aha mid aad u sahal ah.